nahay nabadoon jaamac faarax nuure nabadoonka guud ee Reesiya Xuseen waxaan joogaa magaalada Dhuusamareeb gobolka Dhuusamareeb waxaan u imid doorashada kursiga nambarkiisu yahay 54 waa naloo yeeray haddii naloo yeeray waxaan rabaa horta inaan cadeeyo ID kaarkaygii federaalka ahaa waa ka kii state-ka galmudugna waa ka kii aabahay faarax nuure waa ka shirki Jabuuti tii lagu soo dhisay oo nabadoon faarax nuure nawaka cadayntaydu waa saas waxaan u nimid oo aan halkan u nimid kursiga nambarkiisu yahay 54 waxaan halkan kala kulannay arintii nalagu yeeray arin ka bedelan oo xoog iyo muruq ah oo wax aad aan la yaabnay marka waxaan rabnaa inaan ka digno cawaaqib xumada ka soo socota meesha oo dadka shacabka lagu samaynayo in qof shakhsiya oo kursi loo boobayo in ummad dhan loo burburiyana ma aha kursigaas waxaa musharaxiin u ah waxaa iska leh 4 qolo 4 qolo waa Reesiya Xuseen iyo Celi Uurmidig iyo Reer Cismaan waxaa musharaxiin u ah oo macnaha inay u tartanta u soo istaagtay 5 nin oo Reesiya Xuseen sidaas markay tahay waxaa naga hortimid in qof kaligiisa iyo madaxweynihii galmudug ay iska maamushaan oo dad diyaarad lagu keenay meel macnaha inta lagu xareeyo la yiraahdo ayaga codaynaya annaguna dadkii ergada ahayn oo aan keenay ya annagiina ay meel ku horanahay marka waxaan codsanaynaa in arinta noocaas ah oo la leeyahay oo hadda ay warka ugu dambeeyay caawa la xareynaya yaan ka digaynaa waxaan uga digaynaa madaxweynaha galmudug madaxweynaha federaalka waxaan leenahay waxaas wax dadka qabta ma aha dawlad dhis ma aha dawlad korna laga dhisayo hoosna laga burburinayo dawlad ma aha arintaasan ka digaynaa mar waa ka digaynaa mar hore waa ka dignay mar labaad baan ka digaynaa mar saddexaad baan ka digaynaa ilaa iyo meeshii ay tagtaba waa ka digaynaa noomana cuntamayso kamana harayno haddii hadda isku day la sameeyo xitaa kama hari doono warkii kursiga cabashadiisa odayaasha iga horeeyay baa yiri laakiin waxaan anigu ku bilaabayaa mahmaa Soomaaliyeed oo ah ashahaado badani ama waa ibaaxaysi ama waa itaalwa kursigaas waxaan uga digaynaa madaxweynaha federaalka Farmaajo waxaan uga digaynaa madaxweynaha maamul goboleedka Axmed Qoorqoor ha isku kaayalaynina hana isku kaayadilinina shakhsiga aad kursiga u xirteen iyo 4 beelood oo kursiga lehna waxaa idiin dan badan idiinna sadana badan idiinna Soomaalisan 4 beelood baa idiin qaalisan hal shakhsi ha siisanina 4 beelood oo ah Celi Reer Cismaan Uurmidig iyo Reesiya Xuseen kursigaas 5 nin baa musharax u ah waxaa la rabaa 5 nin in ergada iyo tartankiisu uu cadaalad u ahaado 54 codsigiisaan ku jiraa kursigaas wuxuu ka dhaxeeyaa 4 qolo Celi Reer Cismaan Uurmidig Reesiya Xuseen maamulka waxaan ka codsanaynaa marka in 4taas ergadoodii loo ogolaado loo xaq sooro madaxweynaha Farmaajo Soomaali iyo dib ka dhax abuuri koox walba hadii nin loo booba la yiraahdo Soomaali kulligeed waa kacaysa asaga iyo 4 u booba ku soo haraysa meesha jabhadu abuurahaya jabhadaha abuuri qorqorow adiga dhibta galmudug aday kugu haraysaa
dhibta galmudug aday kugu haraysaa ninkii loo boobaa waa tagahayaa dhibta galmudug yay kugu hari ila ciidow daahir cali ciidow beesha adaa kursigeeda waxna kule kana mas-uula beel hoosaadkaagii iyo magaaladii baana burburaysa oo dhibka ku dhacaya ka fiirsa aduguna waxaan kaloo rabnaa halkan annagoo ah odayaashii reer xuseen inaan ka gudbino baaq hadda ka horna aan mid hore aan diray kii mid la mid ah ayaan rabnaa galabta halkan inaan ka diro taasoo aan u dirayno dhammaan maamulka madaxweynaha galmudug madaxweyne ku-xigeenka dowladda federaalka dhammaan hadday khusayso doorashada ka socota maamul goboleedka galmudug taasoo annaga gaar noo ah kursiga hab 54 oo halkan doorashadiisu ka dhacayso ayaan waxaan ka hadlaynaa arrimo khuseeya taasoo ku saabsan qaabkay wax ku socdaan doorashadiisu hadda ka horna cabashaan gudbinay isla hadda galabtana waxaan rabnaa cabasho labaad inaan gudbino oo baaq ah waxaan rabnaa kursigaas 5 nin ayaa tartanku ku tartamaysa oo musharaxiin ah hadda ka horna waa diray haddana iyadii baan diraynaa waxaan aad iyo aad rabnaa inaan arrintaa ugala hadallo madaxweynaha galmudug maxamed cabdikaariyo qoorqoor si runtii ah waa isagu madaxii galmudug ah ay nagana soo gaarayso kursigaas arrintiisa dhexdhexaad inuusan ka ahayn inaanu dhexdhexaad ka ahayn shakhsi gaar ah oo rabo arrintaa inuu afduubo oo yacni 5 ergey ka mid ah arrintaas waxaan rabnaa madaxweynuhu inuu ka fiirsado inuusan ku tillaabsan annagu waxaan nahay odayaashii beesha reer xuseen ergadii kursigaas ka dhaxaysay oo reer xuseen cali reer cismaan urmidig 100 qof ay diyaar ku yihiin maamul goboleedka galmudug khaasatan magaalada Dhuusamareeb bismillaahi raxmaani raxiim awalan ilaahay baa mahad leh magacaygu waa suldaan cawil suldaan cali suldaanka guud ee beesha reer xuseen anigu cabasho ma dirayo ma cabanayo Soomaaliya dhageysta isoo fiiriya waad aragtaan meel aad joogtaanba Soomaaliya dhageysta kursiga 54 lambarkiisu yahay ee doorashadiisu tahay galmudug magaalada Dhuusamareeb haddii uu cadaalad helo Soomaaliya cadaalad bay helaysaa haddii cadaalad darro lagu maamulana 275 kursi oo golaha aqalka baarlamaanka ee hoose cadaalad darrada lagu maamulo kaas ayaa lagu maamulay ogaada Soomaaliya ogaada indhihiina fura ogaada kursigaas sida lagu maamulo wuxuu marayaa 101 ergey oo 4 beelood leedahay celi reer xuseen urmidig reer cismaan in la yiri 40 ergey qabiilkii lahaa oo celi ah ma lihdin ergo mana xareysan kartaan haddii sharcigaas ku yaalo dastuurka waa wax la qaadan karo haddii aysan ahayn ogaada indhihiina